waxaa maanta magaalada Boorama soo gaadhay wasiirka cusub ee wasaaradda dib u dejinta iyo dib u dhiska dalka mudane Cabdirasaaq Cali Cismaan. wasiirka ayaa markii uu magaalada Boorama soo gaadhay waxa si ballaaran u soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan oo ku sugnaa gudaha magaalada Boorama. markii dambe uu gaadhay hotelka ra'iis ee magaalada Boorama ayaa wasiirku shir jaraa'id oo halkaas ku qabtay waxa uu carabka ku dhuftay ujeedada uu u yimid oo uu ku tilmaamay inay tahay xog waraysiga dadka. socodkaygu wuxuu yahay aan saaq weynay magaaladii baan imtay dadkaygii inaan ugu waramo oo xog waraysto xaaladaha dalka ugu marayo iyo dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca walba inaan madeedii aan waraysto. maamulka jeedinaya madaxweynaha Soomaaliland ilaa shaqada nabadgelyadooda horumarna ay samaystaan nabadgelyadooda ay ilaashaan. wasiirkan cusub oo ay ka muuqatay inuu saxaafadda ku cusub yahay ayaa inta badan hadalladiisu waxay u badnaayeen kuwa uu ku soo afjarayo saxaafaddu su'aalaha tirada badan ee ay weydiinayso. maanta loogu soo noqday magaaladii aan dadkaygii aan fuulaan waraysto ay saxaafadaha waxay dhigeen waxay dhicin ku jirto intii wax soo ayay ku taa jidheega iyo wixii uu yaala xilin ku meel soo wareegay in magaalada loo soo noqday. iyadoo waxa halku saasi yahay ayaa haddana wasiirkaasi aanu haba yaraatee waxba ka odhan waxa uu ka yeelayo mustaqbalkiisa siyaasadeed dadka tirada badan ee barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha magaalada Boorama xaaladoodu dibadyaalka tahay isla markaana u haraadan inay helaan xuquuq la mid ah xuquuqda ay heleen barakacayaasha ku sugan magaalooyinka waaweyn. ilaa haddana lama oga waqtiga ay qaadan doonto booqashadan uu wasiirkani ku yimid magaalada Boorama waxaasi oo dhan waxa ay ka gadaal imanayaan waqti uu wasiirkani ku cusub yahay xilka wasiirnimo iyo jagadan cusub ee loo magacaabay ee dalka. Cabdalla Ali Yusuf, Hon Cable TV, Boorama.